بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقاليد كسر دوانا مركلة إيو بندقة شارب شو أو عاد مرور بهالكان عاد كلا صوتان. هذا بقى إن الله لا أنتي سبسكرايب كهراء وصارتي وعلى النهاية آدي آد بقومها سنتهين أنت كرا وصارت بتروح على النهاية سودو هذا هنا سودو هذا بندقة شارب شو ومرور بهالكان عن كفلك إنه أرمها بالشدة إيو سياسة دبا. هذا لو برنامج بعاو كسو قادرينا هدي إلى هاي إدمه أو برنامج كوهرية وكمدي هاي أبوان بدل وباقي مملكة قلمدوك إيه رسولنا ومدحوين القرقور وهجامين هايو يا الشيخ شاكر وننا عصونا والجماعة هجامين يسكوي ماذا واكرا أبوان بدل أو كهضليا عرين تاسي إلى دقيستا أرمها قلمدوك وحاوي الرئاد يعاد نوحا وتصي سيدا عنو أرنو Soomaali oo dhan xanuujisay islaamka oo dhan xanuujisay gobolka oo dhan xanuujisay waa arin wax allaala waxay ku salaysan tahay mowqif ay ku salaysan tahay iyo waji loo raacay ku salaysan tahay waa arin aan garan weyn arin qabiil ma arin qaran ma arin jamhadeed ma arin diimeed ma qofku waa inaad garataa cudurka neefka markuu hayo xoolaha ama qofka la hayaa dawadeeda la gartaa hadda nimankan Soomaaliya oo dagaalamo oo wadaadada waa urur diimeed waxbay ku dagaalamayaan ayuu waxba khaldan ama saxnaadeen mabda diimeed bay wataan waxay leeyihiin dalka iyaga iyo dadka iyaga diinta ku xukumayna waa waji la yaqaan magac dooni ba loo bixiyo laakiin arinta galmudug ka socota arin diimeed ma arin qabiil ma arin jamhadeed ma وجه لوجو هجاجا عنو جرواي إن بدلنا وكهذا اللي هذا علماء تهي والله هذا اللي هذا مامور كمارتي قلب ذوق تهي والله هذا اللي هذا يدت كمارتي عقلك وصاحبك تهي والله هذا اللي إلهي كعب صدان النري ما تقبر بالوجرة بيتنامس بالوجرة دتك واقع وبركعي يده قرع يوضي هوستات سين قيامها يا اللي ويدير يا تتكاس فهمت حوالي مركا نيكو هدو علمية هي ومرحد وسخ ما قرصن كرت أنا أقول نيب كان مركب قلمي حتى كسر وحنو أركان نمكا علماء ومجا على بحي السنة والجماعة على بحي نمكا ساولا قرد هذا لما وضع لها إلهي ما نكعب سنينا نقول بالله من بتربى سويس كو قلمي كومي يطبن بيرود بوحكو قيب صدي وبرلمان كو قيب صدي الدولة كل استي كومي يتوكل بيرود شن وايسكو بيل وبيش حبر قدر لينا لحدا كلا لو صومالي دا انت ذكري waxa maanta dagaalamaya waa iyaga wixii hore ugu dagaalamaya waa iyaga cadaado iyo dhuuso mareeb iyo gaalkacyo iyo quraceel bay la digay waxaan kula taliyay anugu ayaga dhexdooda walaalayaal Puntland waa qabiil idin lamida idin tira leeg aksharan waxay ku galeen saddexda lafood ugu waaweyn inay 5 sano mid haysato xilka oo aan loogu taaban walaalayaal aksharan kaas oo kala gala ya 4 sano gaalkacyaha hayso 4 kala cadaadaha hayso 4 kalena lusmareeb hayso magaalo madaxdiina halka ka dhigta wanaaga ku qaybsado saas ku ahaad ma faad waa ku kari waay hadda anu maanta waxa leeyahay habar gidir ra'iisul wasaaraha maanta dalka qaranka Soomaaliyeed waa habar gidir madaxweynaha maamul goboleedkuna waa habar gidir sheekh ciidamada wata ee dhuusa quraceel fariistayna waa habar gidir cid kale oo la socota ma jirto ma faad habar gidiray ya salaad naga bixiya hadii kale Soomaali way idinka tagi idinka isugu soo harin meesha koob iyo 10 beelood kale 5 waa idinka 6 beelood oo kale way idinka tagi haddaad markaa ku heshiiraysaa anigu maanta waxaan leeyahay dadka yaa la barakicin ilaahay ka cabsada
ilaahay idin abuurtay ka cabsada wadaadku macnihiisu waxa weeye wanaag fare dadka inuu wanaag faro inuu dadka wanaaga u sheego inuu dadka wanaaga baro inuu diinta qusiyo inta hadda nimankaasi ay dagaal ku jireen siyaasadeed imisa dafcadood oo culimo ay soo saari lahaay hadday wax u akhriyayaan bafad waxay doonayaan waxaan qabiil la ahayn jabhadna ahayn iyo doonayaan wuxuu noqon karaa annaga baawur sheelka siyaasadda waxaa nalaga siiyo waa lagaa siinayaaye qabiil baa tahay wixii qabiil baa lagu qaybsay qabiilka ay ku soo gal baa la leeyahay kow inaad xukunto soo ma rabtid meesha tartan u gal ya waa u dhalatay xaq baad u leedahay in lagu doorto adnaad wax doorato xaq baad u leeyahay sheekh shaakir xaq buu leeyahay inuu lana doorto waxna uu doorto laakiin ha gala wadadeeda ha maro shalay baa ra'iisul wasaare aan qabiil ahayn lagu siiyo maamul goboleedeen aan la siiyo oo ra'iisul wasaare xildhibaanadii markii la qaybsanayay baa qaybtoodii la siiyo qabiil ahayn ayagii baa wixii la siiyay haddana qabiil ku qaybinaya laftooda yaa qabiil ku qaybinaya ma fahanti dadkiina qabiil buu wax ku qaybsana waxay ku dambayn doontaa waxay eeday oo ba'day oo aabaheed lagu gubay ka dambayn doontaa waxay ku dambayn doontaa xabad in la isku maquuniyo ma fahanti haddaan maanta caqligu talin oo cilmigu talin oo aan culimadaasi aynan ilaahay inta ka cabsadaan ayna dadkaas dhib u soo jeedin ilaahay ku soo celinin naxariis xabad baa lagu maquunin doonaa shalay sidii injida xabad loogaga maquuniyey yaa gurceel xabad looga maquunin hadday ka baxaan nahaadgeed waaye noqon doona mar bay kugu kallifaysaa markii gobolkii ka socon waayo horumarkii dadku ka socon waayo maamul goboleedkii shaqayn waayo ya maxaa loo nisbay marka adigu sheeg ay laf dhuun gashay ku noqdeen dalkii iyo dadkii ya marka anigu waxaan leeyahay beeshaas aan soo sheegay oo soomaaliyeed oo magaca weyn leh sharaftiina ilaashada maanta sharafta ha ka tegina waa laydin jecel yahay dad soomaaliyeed oo qacaanaad tihiin cilmi leh aqoon leh ya walaalayaal sharaftiina ilaashada haddii waxa soomaaliya xukuumadda ka jiro dhan kaligiin laydin siiya idinma deeqdo haddii hadda baarlamaanka galmudug oo dhan la yidhaahdo habargidir ha qaadato idinma deeqo marka waxaad yeelaysaa walaalayaalow dadka iimaankaa deeqee dadka deeqee iimaanka allah idinku soo celiyo madaxweynihii idinkaa iskale wasiiradii idinkaa iskale baarlamaankii idinkaa u badan shaqaalihii idinkaa u badan dalkii iyo degaankii idinkaa u badan ya walaalayaalow maanta dhibaato aad xabad isugu dhufataan idin dhamaad xataallo waxa aad xabad isugu ridaan oo wiil habargidir ku dhinto maanta meesha ma yaalo ilaahay ka cabsada anuu saasaan idin leeyahay dad islaamnimaan idinla hadlayaa xoola idinkama rabo ujuuro idinkama rabo degaan idinkama rabo aniga waad ii diideen waa og tihiin annagoo degaana oo qabiil jira ah oo soomaaliyeed oo reer quduba xuquuqdayadii inaad noo diideen waan og cabdikariin xuseen guuleed baa noo diiday markuu ugu horreysay uu qaybinayay maalka oo xuquuq la qaybsanayay oo la reer qudub maba ahan soomaali xataa hiraan ma ahan ninka lagu yiri annagoo degaan oo la og yahay laakiin waxaan leeyahay maanta waxaan ka jecelahay idinkoo heshiisa oo raalliya oo gacmaha isqabsada oo sheekh shaakir iyo axmed cabdi kaariye ya ay wiil iyo sheekhiisi noqdaan oo isku kursi ku fariistaan oo wax wada maamushaan oo wax wada cunaan oo ilaahay ka cabsadaan baan anigu maanta ugu jeclaa intaasaanan idin farayaa ilaahay haddaad taqaaniin ugu dambayn abwaan bedel ayaa ugu dambayntii wuxuu ugu baaqay bulshada halkaasi ku dhaqan culamaa udiinka in ay u kacaan arrintaasi sheekh shaakir iyo qorqorna ay noqdaan wiil iyo sheekhiisii oo halkaasi gubaaweyn uga soo jeediyey ugu dambayntiina wuxuu u soo jeediyey sida tan abwaan bedel hadalkayga waxaan ku soo gunaanadayaa dadka reer galmudugow waxaa igu wallaahi anigu aragtidaydu waa iska gaabantaho nin caqli badan mey qoorqoor nin ka cadaaladsan ama ka caqli roon ama ka karti badan inuuna xil inoo qabamayn baa wallaahi labadii madaxweyne ee ka horreysay iska beddeshay labadaba waa ka raganimo badan waana ka fiicanya tusaalena waxaa kuugu ah markuu xilka qabtay mucaaradkii kuwii ka soo horjeeday iyo kuwii la midka muxaafidkiisa ahaba dawladdiisuba ku wada dar oo xil buu u wada dhiib oo ninka maanta le cayrow sheekhiina difaacda fiqi
mucaaradka ugu darnaaba ha wasiirka amniguna ka dhigta tusaalena taasaa idina waxaa weeye nin qiimo leh oo sharaf leh waa idinka dhashaa laakiin idinkaa dila walaalayaal maanta ha dilina ergaan idinka ahay erga islaam baan idin ahay nin reero qudubaan ahay nin sheekhaan ahay waa taqaaniin aan idin duceeyo magacii hiraab baan ku hadlayaa magacii hawiyaan ku hadlayaa magacii Soomaaliyeed baan ku hadlayaa magacii culimada ku hadlayaa aan idin duceeyo isdaaya gacmaha isqabsada Sheekh Shaakir iyo Qoorqoor wiil iyo sheekhiisa ha noqday haddaba annaguna haddaan nahay shaariba show bandhiga shaariba show team waxaan leenahay galmudug nabadda ha qaadato sunna wal jamaacana wararka ka dhaafto maamulka galmudug ee habba iyo qaska iyo foodo ay ka dhex abuurayso culamaduna ha noqdaan kuwii diinta iyo samaha ka taliya kulligeena waxaan nahay sunna wal jamaaca marka waxaan rabnaa inaan aragno galmudug oo barwaaqo ah galmudug oo horumar gaartay galmudug oo qeyrkeed iyo maamul goboleeda kale wax la qaybsatay galmudug oo Soomaali weyn tiirdaxaad u noqotay oo kaabta dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulkooda oo sarakac iyo horumar iyo dhinac dhaqaale bulsho iyo kuwa kaleba si ay ula tartamaan ama uga mid noqdaan maamulada kale ee amaankooda ka shaqeeyay kuna daydaan sida Puntland oo kale iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland haddaba intaas ayaan kusoo koobaynaa caawi haddaad ku cusub tahay shaariba show TV ama aad rabtid mar walba inaad la socotid bandhiga shaariba show uu soo bandhiga mar walba fadlan subscribe hore u saar si aad mar walba ula socotid ay kugu soo dhacaan barnaamijyada aan hadba soo qaadano ee kala duwan ee arrimaha siyaasadda iyo bulshada ee waddankeena hooye ee Soomaaliya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh